dagaalkii dhawaan lagu xoreeyay degmada Bacadweyne iyo deegaano hoos yimaada waxaa hormuud u ahaa oo qayb weyn ka qaatay wasiirka kalluumaysiga iyo dhaqaalaha buluugga ah ee dowladda Soomaaliya Axmed Xasan iyo la taliyaha madaxweynaha Soomaaliya Sakariya Xasan Gaashaan. doorka ay ka qaateen labadan mas'uul ayaa ahaa mid weyn oo muuqday iyadoo ay muddo 2 bilood ah ku sugnaayeen deegaanada Galmudug halkaas oo ay ka wadeen diyaar garow ciidan iyo abaabul. sidoo kale waxay ka mid ahaayeen mas'uuliyiintii dhawaan ay kooxda Al-Shabaab qaraxa kula beegsadeen deegaanka Laasgacamay oo hoostaga degmada Bacadweyne ee koonfurta gobolka Mudug markaas oo ay askar geesiyaal ah ka hortageen qaraxaas iyadoo ay halkaas ku shahiideen 2 askari. marka laga hadlayo degmada Bacadweyne ee gobolka Mudug waxay leedahay taariikh gaar ah iyadoo la xasuusto inay shacabka magaalada Bacadweyne muddo 3 sano ah dagaal kula jireen kooxaha ka soo horjeeda horumarka iyo xasiloonida Soomaaliya xilligaas oo ay dawladdii uu madaxda ka ahaa Farmaajo ka waayeen wax xiil ah iyadoo ay xitaa waqtigaas indhaha ka eegteen siyaasiyiintii ku metelayay dawladda federaalka Soomaaliya oo ugu magacaweynaa gudoomiye ku-xigeenkii hore ee golaha shacabka Mahad Cabdalle Cawad oo dulaal siyaasadeed u ahaa kooxdii Farmaajo ee xukunka haysatay. shacabka Bacadweyne waxay xilligaas lumiyeen wiilal badan oo geesiyaal ah iyo hub iyo deegaano iyadoo ay sababtu ahayd inay waayeen wax gurmad ah oo uga yimaada dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Galmudug. sidoo kalena ay af iyo adin ka waayeen siyaasiyiintii ku metelayay dawladda dhexe taasoo ku noqotay barmadow oo ku taala dawladdii Farmaajo iyo siyaasiyiintii la shaqaynayay ee ku qancay gumaadka shacabkooda ee aan xitaa hal maalin muujin ficilka kana hadleen. si kastaba ha ahaatee degmada Bacadweyne maanta waa xor waxaana tuutaha u xirtay mas'uuliyiin xilkas ah oo shacabkooda la dareen noqday waxaana ay magaalada Bacadweyne u baahan tahay soo kabasho degdeg ah iyo in la garab istaago shacabkii ka barakacay oo dib u dejin loo sameeyo iyo garab istaag buuxa. sidoo kale wasiirka wasaaradda kalluumaysiga Soomaaliya Axmed Xasan iyo la taliyaha madaxweynaha Soomaaliya Sakariya Gaashaan waxaa looga fadhiyaa inay diyaariyaan ciidankii difaaci lahaa Bacadweyne iyadoo la siinayo xuquuqdooda ciidannimo iyo darajooyin taasoo kor u qaadaysa moralka ciidanka deegaanka ee muddada dheer difaacayay degmada Bacadweyne ee koonfurta gobolka Mudug. guusha ay gaareen shacabka degmada Bacadweyne waxay u baahan tahay in la adkeeyo oo aan mar dambe fursad la siin cadowga. fadlan daawade muuqaalkan sheer gare oo gaarsii meel fog.